السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة برنامجكي dhalinyarada oo xiiso gaar ah leh waxa marti noogu ah walaalkeen Sheekh Anas Ali Mu'min. Sheekh Anas soo dhawow. Wandhow Sheekh Anas su'aasha koobaad ku weydiinayna waxay ku saabsan tahay taariikhdaada oo kooban noo sheeg. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ama ba'd horta waa awalan Ilaahay mahadiis waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradan soo barnaamijkan soo qaban qaabisay oo na doonayso in dhalinyarada loo faa'iideeyo. Awalan waan u mahadnaqayaa aniga markaan iska hadlo Anas Sheekh Munsha Ali Mu'min baa leedahay magacayga. waxaan diinta ku soo bartay Soomaaliya meel la dhaho Urdigley ayaa diinta ku soo bartay haddana waan bartaa wali way ii sii socotaa wax la dhameystiran ma jiraan waan barashadana way ii socotaa dadna waan baraa ما شاء الله. Anas dhalinyaranimada maxaad ka aaminsan tahay? dhalinyaranimadu waa nimco gooni oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu bixiyo oo wanaagna leh lagana faa'iideysto qofkii Ilaahay waafajiya dhalinyaranimadu marka lagu sheego ahadiista culimada diinta dhamaan iyo asxaabtii rasuulka kuwa dhalinyarada ahaayeen waxay qabteen wax saa'id aad u weyn waxa kamid ah asxaabteen rasuulka dhalinyaradoodii Abdullah ibn Abbas oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo ku tilmaamay habrul aalim al ummah caalimkii ummadda Ilaahay oo nabigu ku tilmaamay asagoo caalim ah haddana baa waxa dhici jirtay Sayyidina Umar ibn Khattab ayaa soo wadan jiray oo gararka iyo markii macnaha dadka garta loo kala qaadayo kale waxa loo wadi jiray Abdullah ibn Abbas markaas odayaashu waxay ku dhaheen Sayyid Umar maxaa cunugan yarka mar walba nooga daawada markaas wuxuu yiri cunugan wuxuu xambaarsan yahay idinka waxa xambaarsantiin iskuma dhigmaan markaas waxa dadka awalan u ahaan jirtay diinta iyo shariicada islaamka ayagana dastuur ahay ayagana loo dhaqmi jiray oo dadkana lagu jiheen jiray saadarteed marka way fara badan tahay dhalinyaranimada weyn waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dadka uu siiyay ninkii ka faa'iideysta barwaaqadeedu helaya ninkii laakiin jaaniskaas heli waayo waxa u maleey doonaa inay jaaniskaas ku tahay ayaan daro haduu heli waayo sideen uga faa'iideysanaa dhalinyaranimadaas oo Ilaahay na siiyay nimcadaas aad noo sheegtay barakallahu fiikum ma sha Allah dhalinyaranimada waxa looga faa'iideystaa wax walba waxa tuujinaya qofka bini'aadamka ah oo aqligiisa iyo garaadkiisa iyo wanaagiisaba dhaqi kara ama wanaajin kara ama hagaajin kara waxa weeyaan diinta islaamka ama shariicada islaamka oo la barto shariicada islaamka oo la barto dhalinyaranimada nabigeena kaleey salaatu wasalaam fadli weyn ay leeyihiin dadka dhalinyarta uu siiyay dhalinyarada waxa kamid ah sida xadiiskan oo leeyahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam yawmul la dillu illa dillan todobada qofood oo arshiga harsanayso waxa kamid ah malikul aadil waxa ku jiro shaabun nashaatun oo fi cibaadillah shaab nashaat ah ee ku barbaaray ee ka faa'iideystay ee ku faraxsan ee masaajidka mucallaq ku ah oo qalbigiisana uu ku xiran yahay kuna dadaalaya diinta islaamka barashadeeda iyo wanaagiisana waxa tuujihinayo ama wanaajinayo ama istreet ka dhigayo qofka waa diinta islaamka marka nimcada leedahay waxa kamid ah dhalinyarada in macnaha ay diinta bartaan maadaama aad tahay nin diinta yaqaan ama diinta barto ama diinta ku dhex jiro muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya diinta islaamka ah iyo dhalinyaranimada barakallahu fiikum diinta iyo dhalinyaranimada waxa ka dhaxeyso xiriir aad iyo aad u weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana dhaxdhigay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay qowlkiisa nabiyullaahi Ciise wuxuu dhahay qulaam saki ah baan kaaga dhigayaa uu leeyahay markii malaga loo soo diray oo nabiga uu u dardaarmay macnaha wiil taskiyeysan ee tahirsan oo qad aflaha man sakaha wa qad qaaba man tazaha Ilaahay uu ku tilmaamay sakiga waxa weeyaan qofka anaga waxa u naqaana qofka xoog weynaha qofka jirka weyn u naqaana laakiin shariicadeena waxay tilmaamtay qofka xooga weyn oo geesiga ah inuu yahay midka mar walba caradiisa qarin kara midka dadka u dhibrin kara midka dadka u naxariisan kara ee il raxmad ku sameyn kara xoog weynaha diinteena taas ay ku tilmaamtay
marka dhalinta waxa weeyaan jaanisyada oo waxaa jiro dhalinyaranimada oo sakiga ah wanaagsan waxaa tilmaamayo ilaahay subxaanahu wa ta'aalana uu weyneeyay sharfay ee nabigana uu tilmaamayo dhalinyarada waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo Cabdullaahi bin Umar caalim buu ahaa nin yar buu ahaa caalimnimadiisa waxaa la weydiiyey sidee idaa jaa nasrullaah si u soo degtay macnaha zaman nuzuulkeeda waxaa la yiraahdaa jaa marka fasiraad caadiga loogama wadin idaa jaa xujja looga dhigaayo markaas wuxuu dhahay idaa jaa waxay sheegaysaa ama ay ka tarjumaysaa in nabigeena uu geeriyo doono diintana kamilmi doonto macnaha ee dhameystirmayso sidaas uu ku fasiray markaas Sayyid Umar wuxuu yiri sidee ninkan aad arkaysaan bal fiiri qiimaha dhalinyaranimada uu ku leeyahay iyo aqliga uu keenay waxa waaye way garan waayeen markii dadka la weydiiyay idaa jaa waxa waaye fathul makka la furtay marka la furtay bisay dadkii macnaha ee turjumaadooda noqotay laakiin as aqligiisu wuxuu noqday marka uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi diinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaaban nabiga la leeyahay afwaajan diinti macnaha in koox loo soo galay awal diinta waxa loo soo galay hal iyo macnaha kali ee dadku u soo galayeen laakiin markaan idaa jaa waxay tilmaamaysaa in diinti koox in loo soo galay ee imaaday marka diinta dad badan ee koox loo soo galay markaasuu nabiga wiilkii yaraa wuxuu ku tilmaamay inay tahay diinta kamilideedii ee dhameystirmayso Sayyidina Abu Bakr Siddiq wuxuu leeyahay bada diinta markii sidaas oo maqlay oo idaa jaa oo ay soo degtay buu ooyay markaas waxa la Sayyid Abu Bakr maxaa u ooynaysaa markaas wuxuu yiri waxaan ka ooynayaa sababta ee shayga bada shay nasqun dhahay shay hadii oo macnaha uu kamilmo waxa u bilaabnayso inuu nusqaanta marka maxaa keenaya diintiya dhameystirmatay bakeeri shaax marka ku shubayso marka hor uu buuxsamaya Soomaali shaaxiya ku socdo laakiin markii dambe waxa bilaabanaysa shaahi ina cabto nusqaan ee u bilaabato diintina nusqaantaas ayaa ku bilaabanaysa saarteed ayaa la ooynayaa hooleeya marka ما شاء الله جزاك الله markii laga soo tago su'aalihii dhalinyarada aan ka weydiinay waxaan markaan u soo laabanaynaa wax adiga kugu saabsan arinta koowaad waxa weeye inta diinta baranaysay ama diinta ku dhex jirtay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ama qisooyigii ku soo maray oo aad xasuusato oo aad anaga mataqaanaa nooga sheegi karto waa sax diinta markaan baranayay waxaan ku soo bartay meel mawduucyo aan u aqoon jirnay iyo masaajidada sida xirta lagu aqoon jiray waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah meel la dhaho Wardhiigley annagoo kitaab ka raacanayno oo subaxii kitaabka waxa la galaa 12 saac oo waxa la galaa oo subaxnimo bis habeenkii waxa dhacday xirta sida lagu yaqaan dad fuqara ay ahaayeen sababta ee taa fuqarnimadaasna ma ahayn faqriga annaga waxa u naqaana maal la'aan laakiin faqriga oo dhinaca kale faqriga waxa la dhahaa ninka cilmi lahayn ninka diin lahayn kaasa faqri ah waxa dhacday habeen baa marka galabtii oo kale waxaan aadnay meel la dhaho siyaaro oo lagu subcinayo subciya noola diray annagoo dhalinyaro badan oo yar waxaana la dhahay subacaas aada soo subciya subxina kitaabka ma idinka baaqan karo subax habeenkii subcan ku dhafarnay subci marka ku dhafarnaa subxi waxaan maagnay kitaabkii ka gaaray ee carara meesha marka aan imaanayno iyo meesha kitaabka lagu aqrinayna way kala fog yihiin kaaraan laba degmo waay marka iyo xamar jadiid waay sadarteed annagoo kitaabka u soo soconaa qolo burcada jidka noo gashay dhalinyaro badan oo yar waa nahay qoladii marka ninba inuu qorgo nagu qabto wuxuu dhahay hadaad doonaysaan inaad badbaadaan waa subcineynaa hadaad subaca ninkii gafo dharkoo dhiga ninkii gafi waayeen waa la fasaxayaa subciya galno marka subci marka sidaas u galnay ninkii laba mar gafay waxa dhaana mid saddexaad hadaa gaftid anaga dhan waa na fasaxaysaa mid saddexaad uu gafay waa sidii aan ku wada fasaxay maalintaas ay la yaabadneed oo subac liigu xijeeyay oo dharkaygana ee subac iigu badbaaday quraanka la barto marka inay sidaas u fiican tahay diinta macnaa xajiga ee qofka ay u yeelayso sidaas maalintaas aad ila yaabadneed aad u la yaabay nin hadana diinta yaqaano isbaarana dhiganayo maalintaas arka waay ما شاء الله جزاك الله maxay tahay awoodaha alla siiyay dhalinyarada ay ka faa'iideysaneen awoodaha alla siiyay dhalinyaradu waxa weeyaan